bismillah. Ee, NFT horta waa soo koobaya insha Allah hordhac yar waa maxay NFT sida u shaqeyso taariikh yar oo kooban farqiga u dhexeeyo cryptocurrency iyo NFT noocyada ugu caansan NFT-da iyo faa'iidooyinka iyo caqabadaha iyo isticmaalka dhabta ah real life use iyo sida lacag loogu sameeyo iyo mustaqbalka NFT-da iyo suuqan digitalka iyo mustaqbalka ay leeyihiin then waa soo gunaanadeyna insha Allah then last talo recommendation marka horta waa maxay NFT waxaa laga soo gaabiyey non fungible token waxa waaye micnaheeda tahay fungible horta waxa waaye wax la jijibin karo la balaari karo la bedeli karo non fungible na cagsigeeda waaye waxay noqonaysaa waxaan la bedeli karin oo unique ah so waa astaan digital ah waagi hore waxaa la isticmaali jiray maxaa lalahay artist oo gacan lagu sawiray waxyaabahaas tan way ka duwan tahay tan waxaa loo isticmaalaa by virtual iyadoo technology lagu dhisaayo ama blockchain lagu dhisaayo intaas horta waa fahamnaa aan umaleynaa saan jeclahay NFT waxay tahay okay maxaa la isticmaalaa marka NFT-da NFT markaa maqashid waxaa waaye waa farshaxan oo sawir ah ama music ama sheeg sawir farshaxan iyo music iyo video intaas oo loo bedelay tii oo gacanta lagu sawirayo loo bedelay oo by digital laga dhigay oo by virtual laga dhigay waay marka sidee u shaqeysaa marka NFT-da NFT-da waa la abuuraa sida hadda idin sheegay farshaxan ahaan aa loo sameeyaa maintain waa lagu sameeyaa waa la main garayaa waxaan lagu qoraa blockchainada sida ethereum oo kale ethereum gas fees aad u qaali ah NFT kasta wuxuu leeyahay unique ID unchangeable saa hore ugu soo sheegay non fungible lama bedeli karo unique ID uu leeyahay ciwaan gooni uu leeyahay smart contract uu ku dhisan yahay marka taariikh yar oo kooban taariikhdiisa yar oo kooban waa soo koobaya NFT ugu horeeyay wuxuu dhacay 2014 quantum waxaanu ahaa Kevin MC Coy ali jiray iyo ciyaartii ugu caansaneed ee crypto Satias 2017 iyo 2021 NFT ugu caan noqday suuqyada OpenSea iyo Southway waxay hadda ka qayb yihiin NFT-daas qayb weyn ka qaataan dhaqaalaha dhanka Web3-ga hadda already waxaan u soconaa Web3 waxaan ka guuraynaa Web2 waxa waaye dhaqaalaha aad iyo aad ugu qayb qaataan Web3-gaas iyo NFT-da correlation fiican ka dhaxeeya xiriir fiican marka farqiga u dhaxeeya NFT iyo crypto labadoodba waa horta similarity-gooda waxyaabaha iska yimid yihiin waa laga trade gareeyaa sida oo crypto loo isticmaalo walad inaad samaystid blockchain-daas aad ka dhex raadsatid taas way ka sameyn yihiin laakiin crypto wax la badi kara waaye 1 BTC 2 BTC 4 5 6 ilaa 1000 hal ethereum 2 ethereum laakiin NFT waa hal bis waaye hal xabo oo kaasoo astaan u ah shay gooni u ah macnaha waan la bedeli karin maxaa lalahay oo ID gooni leh oo maxaa lalahay certification leh maxaa lalahay allahul mustacaan aan laga koobigay garisi karin maxaa lalahay hadda wadankeena Soomaaliya copyright wadamadii saxiixa ay meeshan ku jirin hadda NFT oo qof sameeyay waa sameyn kartaa oo Soomaali joogo copyright ku qabanay laakiin wadamada copyright ka jiro qofku waa ku maxkamadeyn kartaa haddii NFT-gaaga maxaa lalahay sheeg oo la copyaysto maxaa lalahay waa dacwey kartaa qofkaas si copyright loo ilaaliyo marka NFT lacag oo ma laga sameyn karaa ha waa lacag waa laga sameeyay waxaa jirto labo taariikh aan soo qaadanayo waxaa jiray wiil yar oo 12 sano jir ah can you imagine cunug 12 sano jir inuu ka sameeyay NFT lacag oo millions oo ka sameeyay oo wuxuu sameeyay sawir yar oo maroodi ah uu sameeyay maxaa lalahay oo ka bacdi blockchain-kii wixii lagu daabacay dadaa waxaas xiiseeyaba ilaaha markiisa oo daneey aad u daneeyaan oo maxaa lalahay sheegay iyo kambaniyal oo aad u jecel waxyaabahaas oo farshaxankaasi waxaas ay ka dambeeyaan marka waxay sameeyaan NFT walba soo baxaan midka ay ka helaan oo kale
way gadanayaan lacag badan aan lagu kala iibsadaa independence qaabka aad u samaysay farshaxankii iyo certificationkii iyo waxaas oo dhan mid kale waxaa jirta iyadana yar indonesian ah oo mar walba selfie iska qaadi jiray maalin walba selfie iska qaadaa then ilaahay amarkiisa waa u kala kacday yarkii selfigii wuxuu ku daawacay meelaha nft lagu daawaco wuu soo babadish gareeyey then kabacdi sidii aa loogu gatay oo sawiro qurux badan ay naqdeen oo farshaxan ah oo by virtual lagu dhisay then kabacdi lacag uu ka sameeyey waxaa kaloo jiray taariikh ahaan marka laho iyadana video oo youtube-ka hadda waa laga saaray laakiin waxaa daawatay 1 billion ku dhawaada daawatay million maaha 1 billion b waa 1 billion ku dhawaada daawatay oo laba caruur yar yar oo videogaas isan laga sameeyey nft marka dambena videogii waa laga saaray si loo ilaaliyo copyright-ka maxaa la dhahayay noocyada ugu caansan ee nft-yada farshaxan artist allah nft-yada saa hore u sheegay music crypto sport iyo maxaa la dhahayay virtual land dhul digital ah sida waxyaaba dhulkan digitalka ah waxaa waaye aadaa loo daneeya hadda oo ayagana waxaa la real world asset rwa marka waxaa waaye waa waxyaabaha rwa-ga aaday u fiican yihiin marka ayagana yaa la mogaanin faa'iidooyinka nft-da ay leedahay waa hufnaan suuqeed waaye suuq oo hufnaan ay ka jirto maalgelin casriya helaan waxaa laga yaabaa nft-gaaga in lagu maalgeliyo then kabacdi oo dhaqaale badan markaa samaysid oo maxaa lalahay wixii meesha ka soo baxa aad qofkii aad kala qaybsataan qofaasoo initiate gareynayo qofna uu ku maalgelina maalgelin haddaa u heshid is okay marka waxaa laga yaabaa meesha dhaqaale badan inaad ka samaysid lahaansha ganacsi adaa owner ah micnaha tan adaa iskale unique waaye maxaa lalahay cid kaa qaadahaysana ma lahan cid kaa badsahaysana ma lahan oo waa non fungible waaye ma la badi karo waa hal iyo laba iyo saddex ma laga dhigi karo waana security aaday u fiican tahay oo waa sukuur wax la bedeli kara ma aha waa unique marka waxaa kaloo maalgashan waa lagu sameyn karaa waana lagu trade garay karaa maxaa laleeyahay caqabadaha waxaa ka mid in nft aa samaysay in lagaa daba koobiyeeyo wadamada copyrightska aysan ku jirin sida soomaaliya oo kale iyo wadamo kale badanaa jiro oo copyrightska aan saxiixin inay ayagana copy kaa daba sameeyaan taasaa caqabada ugu daran ah oo wixii aa samaysay lagaa daba sameeyo oo dadkaa dhaqaale badan ay ku helaan oo suuqa kala baxaan oo kale iyadana caqabad waaye isticmaalka dhabta ah real life caseka maxaa lalahay reddit iyo x twitter nft profile picture oo qof hadda kahor profile picture uu soo saaray twitterka isagana wuxuu ka sameeyey nft oo isagana lacag badan uu ka sameeyey iyo instagram digital collectibles waxaa lalahay iyo gambing skins iyo hub nft ah oo uu sameeyey marka real estate guryo lagu kala iibsanayo sida blockchainada sida real world assetka nft-daas naftigeeda inaad ku iibsatid guryo iyo waxyaabaas wax ku bedelatid sida as crypto similarity-ga ay kamid yihiin nft-da iyadii crypto waxyaabaas iskaga mid yihiin waa ku trade garay kartaa waxbaa ku iibsan kartaa saas waxyaabahaas ayaan similarity iska yihiin iyadii crypto sida lacag loogu sameeyaa inaad maalgashi ku samaysatid ama aad trade ku samaysatid labadaas siyaabood waa lagu sameyn karaa nft-ga lacagta mustaqbal ma leedahay nft yes mustaqbal way leedahay weli demandigeeda aada u fiican yahay mar walbo demandiga oo badan yahayna waxaa waaye oo baahida ay badan tahay maxaa lalahay wax walba qiimay yeelanayaan laakiin haddii waxay demandigeeda iska yar tahay oo useless ay tahay waxaa waaye waa suuq ma lahaanayaan marka gunaanadkii aan ku jirnaa maadaama waqti una hayo wax yaro koobana kasoo diyaariyey nft waa hal abuurnimo oo bedeleysa fahamka lahaanshaha iyo ganacsiga digitalka ah marka intaasaan kusoo gabagabeynaya insha allah intaas yarka ugu talagalay aad iyo aad aa umahadsantihiin dhammaan maamulka macalimiinta marti sharafta maxaa lalahay intaa in ka badan somali financial club ugu imaw crypto ugu imaw nft ugu imaw forex ugu imaw wax walba oo kheer ugu imaw
dad qalbiyadooda furan, macallimiin qalbiyadooda furan, maasha Allah. Intaas in ka badan waa lagu hayaa. Marka wax un baro, aan barwaaqo gaarnay insha Allah. Intaasaan kusoo koobi lahaa. Soo dhawaada. Waa kugu soo wareejiyey saaxiib Liban.